برستيشنku saa u jeedaanba marka hore wax yar waxaan milicis ku samayn doonaa waxbarashada toosan horaa loo sheegay mashaakiraadkeeda laakiin wax yar baan ku darayaa insha allah kadib waxaan ka hadlayaa wax yaroo dugsiga qur-aanka iyo noocyadiisa waxaan ku dari doonaa researchka hadda aniga aan sameeyey iyo ujeedooyinkiisii oo kooban su-aalo muhiima oo maskaxdeeda in badan ku wareegayey oo aan isku dayay inaan xal u helo iyo ugu dambayn soo jeedinteeda ugu dambayso ah aragtidayda waxa ila muuqato in la sameeyo waxbarashadeenna toosan sida halkan uga jeedaanba shalayna loo sheegay adduunka meesha ugu hooseyseena ku jirnaa qiyaastii 3.5 caruura ayaa oo da-da joogta primaryga ayaa runtii bannaanka taagan oo waxbarasho haysan dugsiyada sare waa kasii liitaan oo ujeedaan 18% qiyaastii dadkeena akhriska iyo qoraalka 35% qiyaastii iyadoo lasii kala saarayo functional literacy qaab kala gelaysa laakiin haddana guud ahaan halkaas maraysaa arrinta aan rabo inaan taabto waxa weeyaan caruurteenna waxay malayn karayaan yacni inta ay lifetimekooda ama noloshoodu ay tahay 1.72 yacni sano maxaan ka wadaa 2 sano oo dhiman muxuu ahaa 38 yani 2 sano wax ka yar ayay lifetimekooda ay runtii ay malaysan karayaan wadamada deriska oo hadda inaga gobolkan ka tirsannahay haddaan fiirino maalan Ethiopia oo kale ilmaha Ethiopiaanka ahi qiyaastii 9 sano 65 sano wax ku dhow ayuu malayn karayaa inuu noloshiisa iskuul helo Kenya 10 sano ilaa 11 sano Eritrea 8.8 sano wuxuu Djibouti xataa 7.4 inagana waxaan marinaa 1.72 ilmaheenu inay muxuu gabdhahana waad u jeedaan meesha ay ka sii hooseeyaan runaantii next igu dar intana waa intii laga sheekeynayay oo dhibaatada caamka ayna haysata runtii horaa loo sheegay wasiir faarax baa ka hadlay waxaa ka hadlay madaxweynaha iyo dhammaan dad kale oo aqoonyahanka ahaa dhibaatada ayna haysata oo tireedu badan laakiin inta tan haddaan odhan karayo waa kuwa ugu muhiimsan iwad next halkaan markaynu fiirino mushkiladayna haysata maalan marka loo fiirsho macallinkii ardayga yacni waxaa ugu hooseeya 32 arday inay halkii macallin ay ku soo aadayso laakiin meelaha inta badan waxay u badan tahay ilaa 60 inay ku soo aadayso muxuu ahaa halkii macallin 60 arday numberka waa sii siyaadaya marka loo fiirsho macallinka tababaran oo qualifiedka marka loo fiirsho iyo ardada inta isku soo aadaysa sida ku cad education sector analysis-ka xogta ugu dambeysay oo dowladda Soomaaliya sanadka 2020 iyo labada waxbarashada waxaa laga hadlayaa halkii macallin oo tababaran inay ku soo aadi karto 542 arday halkaa waxaa ka dareemaysaa runtii meeshaynu taagannahay marka la eego macallimiinta u diyaarsan inay caruurteenna wax u dhigaan aqoontii iyo xirfaddii loogu talagalay leh sii wad haddaynu fiirino yacni waxaad arkaysaa marka bal daraasadatan ujeeddadu aan ka waday maxay runtii background bay leedahay waqtina uma hayo daraasadda hadda halkan aan kusoo bandhigaya qayb ahaan waxay ka mid tahay risaaladaydii ama thesiskaygii PhD-ga aan ku sameeyey 17 sano ka hor iyo daraasado ka dambeeyey oo 3 oo aan ka sameeyey mowduuca marka waxaan ka soo qaatay runtii qodobo ka mid ah su'aalihii waagaas iyo objectivekii waagaas arrinta researchka ka dambeysayna iyadoo hadda ay ka soo wareegtay 20 sano waxaan u arkaa still inay tahay qadiyatu saaca ama muxuu ahaa issue maanta taagan muhiimadeedana leh isii wad haddaba aynu dugsiga qur-aanka fiirino marka guud ahaan dugsiga qur-aanka markaan soo koobno waa muasasadaas 1000 sano jirtay waxaa la yidhaahdaa sheekh yuusuf alkowneyn baa loo tiiriyaa sheekhii ugu horreeyey ama macallinka ugu horreeyey oo ku bilaabay casriyeyn runtii ani qabrigiisi waa tegey abu barkhadle taariikh baan ku arkay 200 hijriyada inuu yimid uu dalka uu soo galay hawshanna uu ka bilaabay marka ilaa 1000 sano waa la hubaa waa kan ugu muxuu ahaa aan markii la eego xagga muasasaadkeena tacliimiga stable weeyaan lama saameyn kuma samayso maalan dhibaatooyinka dhacaya
ha noqoto dagaal abaaro maxaan ka radaa dadka oo ka qaxa meesha ay deganaayeen iyo waxyaalo badan oo in badan dadkan la soo gudboonaada ma aha institution ay saameeyaan bilcagsi waxaaba dhacdaba inuu sii ziyaado oo uu sii tarmo sii wanaagsanaado inta badan dee waxa weeyaan noocyo kala gedisan buu leeyahay waan arki doonaa laakiin qur-aanka kariimka ayaa mishankiisa ugu horeeya ama hadafkiisa guud uu yahay inuu caruurteenna u baro meel kastaa laga heli karayaa waa available waana accessible waana affordable saddexdaas ayuu kulansaday iyadoo la heli karayo iyadoo la awoodi karayo iyo iyadoo la gaari karayo meesha uu joogo saddex arrimood oo aad iyo aad u muhiima oo aysan lahayn noocyada kale tacliinta ama muasasaad kale sii wad halka haddaan fiirino shalay waxaynu ka hadalnay lagu soo bandhigay halka kan professor kaynaan professor xasan kaynaan runtii oo aan u mahad celinayo halkan aan ugu mahad celinayo maaqaan inu fadhiya in kale aragtidii ugu horreysay oo researchkan aniga ugu dhalisayna runtii baybar uu qoray ayaan 39 akhriyey taas ay u keentay inaan daraasaddan sameeyo marka wuxuu ka mid yahay sida halkan aad uga jeedaan within the foundations of Somali society arrintii shalay uu ka hadlayo hiddaha oo aasaaska ah dadka Soomaalida aysan ka maarmi karin shaxdan weeyaan shaxdan marka la fiirsho aniga midda aadka ii khusaysaa waxay tahay arrinta ku saabsan marka la soo gaaro waxbarashada la soo gaaro waxbarashadana sidaad u jeedaanba waxay ku bilaabatay oral tradition ayay ahaan jirtay haddeertaanna way tahay qayb ahaan waxa ku xigay waxay idin institutionka tacliimeedoo aynu weligeen lahayn wuxuu ahaa dugsiga qur-aanka weeye si halkaa uga jeedaan waxaan kaloo dambe oo nidaamkan tacliimiga westernka iyo kulli gadaal bay ka yimaadeen marka dugsigu wuxuu ka mid yahay foundationka ummadda Soomaaliyeed ayuu ka mid yahay marka la fiirsho tacliinta waa kasoo gudbayaa maadaama la yidhi waqtigu waa yar yahay runtii sharax badan bay u baahan tahay maxay yihiin dugsiyada qur-aanka dalka hadda ka jira noocyadee typologieskooda maxay kale yihiin xaggee laga helaa aqoonta marka loo fiirsho maxay la mid yihiin aniga daraasaddii aan sameeyey waxaan ku ogaaday dugsiyadu dugsi bay magaca guud ka wataan laakiin intaasoo nooc waaye waxaa ugu horreeya dugsiga loo yaqaan dugsi loox ama traditionalka la yidhaahdo oo kulligeen inteenna waaweyn aynu ku soo qaadannay levelkiisu waa elementary iyo wixii la mida inta badanna waxaa laga helaa hadda dhulka reer guraaga iyo dhulka ruralka labada meelaha fogfog magaalooyinkana waxbaa ka jira weli kan ku xiga waa nooca tadawuray oo isbeddelku ku dhacay oo ah midka aynu u soconno hadda researchkuna runtii uu ku salaysan yahay suurtagalna ah in muxuu ahaa uu gudbin karayo tacliinta asaasiga noocaas magacyo kala gedisan buu leeyahay dugsi kitaab waa la yidhahdaa hybrid waa la yidhahdaa integrated waa la yidhahdaa isku dhaf waa la yidhahdaa waxa weeyaan waa elementary level weeye waa galaaska koowaad ilaa galaaska afraad wuxuuna ku jaango-an yahay muddada caruurta qur-aanka ay baranayso oo ah 4.2 sano ama 4 sano qiyaastii marka la fiirsho guud ahaan inta qur-aanka caruurta ay ku xafidayso waxaa jira madrasa jirta oo dalka aad ugu faafsan runtii halkan waxaan rabaa inaan si gaara u tilmaamo xataa Soomaaliya dhexdeeda ayaa dhaqanka dugsiga uu kala gedisan yahay gobollada uu kala gedisan yihiin leveladana uu kala gedisan yihiin marka madrasana waa jirtaa aqoon masaajidda ka socota oo iyadoo laftigeeda qur-aanka lagu bartaa jirta oo tertiary waxaa iyaduna jirta xer oo hadda baryahan sii yaraanaysa laakiin dhaqan inuu ahaan jirta aad iyo aadna muhiim u ah oo soo hosgelaysa barashada qur-aanka iyo diinta sii wad nambarka dugsiga qur-aanka lama garanayo ilaa hadda dalka kan laakiin daraasaadku waxay sheegayaan anigoo ka duulaya ixsaa'iyaad hore oo la sameeyey oo aan tusi doono wax ka badan 35,000 oo dugsi qur-aan inay hadda waqtigan xaadirka waddankeena ay ka jiraan caruurta ay hayaana inay ka badan yihiin 3 milyan dugsiyadaas 25% oo ka mid ah waa nooca loo yaqaano integratedka ama isku dhafka bixinaya waxbarashada diiniga ee qur-aanka xafidkiisa iyo waxbarashada kale oo aynu arki doono markaan daraasad sameynay waxaan fiirinay school size intee leegyahay dugsiyadu intee leegyihiin celcelis waxaan ogaanay miinku inuu yahay aan ogaaday 89 inuu yahay waa helaysaa qaar 20 ama 30 ardaydu ay tahay laakiin qaar dhowr boqol oo caruur ay dhiganayso way jiraan miinka marka la fiirshana 89 ayaan ku helay aniga daraasadeydii da'da ardayda dhiganaysaana inta badan ay ku qaataan waa 4 sano iyo 2 bilood qur-aanka ay ku xafidaan next haddaan fiirino genderka xaggiisa iyo muxuu ahaa caruurta gabdhaha iyo wiilasha sida meesha ka cad aad bay isugu dhow yihiin 0.74 aad bay u dhowdahay wax yar oo farqiya u dhexeeya marka wiilashii iyo gabdhihii labadiiba access bay u leeyihiin
haddaynu eegno muxuu ahaa waqtiga da'da lagu galo miinka wuxuu noqday 5 sano ilaa 6 sano inta u dhaxaysa laakiin 4na waa jiraa ka hoosna waa jiraan kadibna way jiraan طيب co-education caruurta masal dhigataa mise qolo kaliya ayaa wiilasha gaar loo baraa ama waxa loo dhigaa gabdhaha gaar loogu baraa waxaan daraasadda ku helay 97% inay wiilashii gabdhuhu ay dugsiga ku midaysan yihiin oo isla dhiganayaan marka runtiina waxaan kaloo daraasadda ku helnay sabab ka mid ah sababaha enrollmentiga loo waayay caruurta ay enrollmentiga iskuulka ay u geli waayeen oo waalidiintu ugu diri waayeen muxuu ahaa dugsiga hoose inay ka qayb galaan waxbarashada waxay noqotay dugsiga quraanka ay dhiganayaan sababta koowaad ama sababta labaad baan leeyahay marka laga reebo xagga finansiga iyo awoodda marka laga reebo laana waalidiinta culays badan baa waxay ka haystaan inay caruurta iskuullada caadiga u diraan xagga dhaqaalaha marka laga hadlayo laakiin dugsiga quraanka ay dhigtaan waxay noqotay sababta labaad oo ilmaha aysan ku tegi karin easy what waxaan rabaa next halkan waxa weeye dugsiga quraanka macallimiintii iyo ardaygii siday isugu soo aadayaan marka ratio waxa weeyaan 43 ardayba hal macallin in uu ku soo aadayo laakiin waxaa helaysaa 20 oo arday oo hal macallin ku soo aadayo waxaa kaloo helaysaa 110 arday oo hal macallin ku soo aadayo marka xaaladaha iyo locationska laga helayo xaaladaha duruufaha jira ayay ku xiran tahay mar walba waxaan fiiriyey xagga dugsiyada tani maxay haystaan ma leeyihiin qalabka asaasiga ah caruurta wax ku baranaysa furniture-kii oo kale halkan si gaar ah waxaan uga hadlayaa integrated-ka nooca loo yaqaano traditional-ka kama hadlayo waxaan ku helay daraasadda 47% inay haystaan furniture-ka asaasiga ahaa 47%na the same number inaysan lahayn biyo nadiifa meesha yacni waa wada ogtihiin meesha dugsiga quraanka lagu dhigayo masquul ma laha biyana ma laha inta badan laakiin daraasadda aan sameeyey ma ahayn keliya gobol waxaan daraasadda ka sameeyey gobollada waqooyi galbeed soomaaliya ama somaliland waxaan tegey muxuu ahaa boorame hargeysa burco waxaan daraasadda ka sameeyey puntland oo aan ka soo bilaabay boosaaso garowe qardho gaalkacyo koonfurta xilligaan daraasadda sameynayay inta badan dagaal baa ka socday laakiin waxaan nasiib u helay inaan south west aan tago oo aan baydhabo ka soo qaado dheytada oo aan ka soo qaado xudur iyo waajid marka dheytadan almost waa soomaaliya oo dhan weeye sida waxus jiraan duruufaha jiraya waa sidaa weye 40% in maaragtay aysan haysan muxuu ahaa masquulihii 53 ka midii aysan haysan wax buuga iyo wax qalimaa inkastoo ay rabaan inay wax bartaan ilaa aan sii wado marka waxaan jecelahay waqtigu iska yaryahay warqad baa laga keenay 2-3 baa ii hartay please sii wad halkan waa taariikhiyan dugsiyadan tiradoodii si ahaan jireen history-gi yani markii 63 aynu maraynay dalka waxa 2117 dugsi buu lahaa ardada dhiganaysa 44 bay ahayd saa u jeedaan 82 oo markaas 20 sano ka soo wareegtay waxaa daraasad sameeyey wasaaraddii waxbarashada iyo alesco wasaaradda qorsheynta qarankana way la waday jaamacadda carabta tirada markaas waxay ahayd yani halkaasi ka muuqata 5 number of schools 5480 ardaydaas ayna dhiganaysay 88 oo xilligii ay dowladdii sii dhacaysay 13,000 oo dugsi quraan baa dalka jiray caruurtan waxay maraysay 845 cagsigeeda markaad fiirisid waxaa dalka ka jiray markii dowladdu dhici rabtay 2 sano ka hor 650 iskuul oo primary ah ardaduna waxay marayeen 150 oo keliya hoosna waa usii socotay marka waxaa garanaysaa kana kor u socday waxbarashadii formalkaana hoos marka su-aasha isweydiinta le waxay tahay waay dugsigan oo sidaas ah muxuu ahaa institutionkeennii ah oo carruurta ay ku badan tahay aynu uga faa'iidaysan weynay oo aynu carruurteenna qur-aankii way baranayaan ugu dari weynay wixii kale u baahnaayeen isii wad waxaan rabaa halkan haddaa fiirisaan waxaan daraasad ka samaynay actually daraasaddan aniga ma samayn laakiin research dadkii horreeyeen sameeye bay ahayd halkan waxa weeyaan waa availability physical accessibility affordability-ga dugsiga halkan waxaa ka cad 90% dadka Soomaaliyeed carruurta Soomaaliyeed inay tagi karayaan iskuulka u dhow yahay yani daraasadda markaan soo koobo 250 mitir kasta oo dhulka Soomaaliyeed dugsi quraan ba ku yaal yani dhulka Soomaaliya oran magaalooyinka iyo meelaha la degan yahay meel kasta oo la degan yahay magaalo ama degmo ama tuulo ah
يعني waxaa 250 mitirba waxaa ku yaala dugsi يعني markaad fiirisid halkan يعني حتى dhulka nomadic adeegtid 96.4 94.7 يعني runtii daraasaddan UNDP baa samaysay 2012 waxay muujinaysaa dugsiga يعني institutionka muhiimadu leeyahay isi wad waqti waxba lagu daraya maadaama xaqu ka dahayo halkan waxa weeyaan distancigi ilmuhu ay ku gaari kareen dugsiga quraanka daraasaddan baa laga sameeyay runtii iyadana waad garanaysaa yani less than kilo 500 mitir boqolkiiba 86 caruurteena iyo dugsigu u jira marka laga baqayo in maartay dhibaato la kulmo waa dariskii weeyaan maartay oo kaliya wuxuu baahnaa daraasaddan kama sii gaari ka faafaynteeda please easy what halkan waa saacadaha ilmuhu ay qaataan dugsiga quraanka ay ku jiraan meeshan ugu dheer waxa weeyaan waa miinkii average-kii weeye ilmuhu wuxuu dugsiga weekii ama asbuucii uu ku bixiyaa konton dhexdhexaad ba laga hadlayaa konton iyo 48 meesha dugsiga caruurta ugu badan tahay waqtiga ku bixisaana baydhabo ay noqotay markaan daraasadda sameeyay waxaa kaloo jira 66 way gaaraan 66 saacadood asbuucii inay ilmuhu ku bixiyaan iskuulka formalka waxaan malinayaa 36 iyo meelahaas weeye 37 iyo waxaan malinayaa asbuucii primary in lagu bixiyo halka waxaa garanaysaa marka waqtiga caruurta ay joogaan si tiro badan yahay in lagu faa'iideystana u baahan igu dar wax yar ay haray halkan muhiim waaye waxbarashada formalka sideedaba sagaalkan arrimood bay ka kooban tahay su'aashu waxay tahay dugsigu xagee kaga jiraa dugsiguna inkasta uu yahay non formal ama waxbarasho community uu yahay haddana wuxuu leeyahay characteristics of all formal education waxaana sagaalkaas bay noqonayaan waxa weeyaan wuu leeyahay muxuu ahaa recognition haddaan hoos ka bilaabo oo maxaa la bixiyaa ijaaza la bixin jiray hadeerna waa la bixiyaa quraanka markuu barto time baa jira space baa jira tabartiisu baa iska liidato assessment baa jiro ama suuc baa lagu asaas gareeyaa ama waxa lagu asaas gareeyaa nidaamyo kale oo quraanka maaragtay caruurta lagu waxeeyo knowledge quraankii buu u badan yahay hadda laakiin waxyaalo kale hadda lagu soo daray waqtigu ima saxaya mid inaan u waxeeyo laakiin sagaalka shay oo asaaska u ah in waxbarasho formal ilmuhu ay helaan laftigeeda dugsiga waa ka jiraan laakiin ma dhamaystirna isi wad halkan waa waxbarashadii Soomaaliya burburkii koor nidaamkii structure-keena sidoo ahaa waxaad u jeedaan meesha ugu hooseysan calaamadiyay oo numberka ah waxa weeyaan Quranic school meesha uu kaga jiray wuxuu la sinaa nidaam jiru ahaa oo xadaanada geeskeeda yaala oo maarta la ictiraafsanaa dawladdu ay ictiraafsanayd isi wad halkan waxa weeyaan road mapkii oo soo socda sidee lagu gaari karaa in dugsigan uu shaqeeyo oo uu baahida caruurteena galaaska koowaad ilaa galaaska afraad uu daboolo road mapki waa kan waxa weeyaan marka ugu horeysa in asaga laftigiisa wax la geliyo oo capacity-giisa la dhiso marka labaad muxuu qaybsamayaa human iyo material labadaas in xoog la saaro la sii wado macalinka in wax la baro haddana manhajka laftigiisa la eego oo hadda mesela manhajkii diyaar buu inoo yahay dugsiga hoose waxay ku xiran tahay oo kaliya textbook iyo macalinkii oo tababarkii la siiyo hawshu way dhowdahay hadda in la sii wado ugu dambeyntii wuxuu noqon karayaa galaa meel u dhiganta dugsiga hoose oo ardaygu markuu quraanka dhameeyo gelinka hore quraanka u dhigto gelinka dambana uu maadooyinkan kala qaato uu awoodi karayo inuu markaas uu galaaska shanaad toos u bilaabo asagoo quraankiina ku xafiday muxuu ahaa maadigii waxyaalihii loo baahnaa maadooyinka loo baahnaa sidaas ku bartay igu dar hal ama laba ay haray kan waxa weeyaan the entire framework aniga thesis-kaygi waaye waxay ugu qaadatay waqti badan inaan fikirkan sameeyo oo muxuu ahaa aan ku jaangooyo meesha loo socdo medium iyo long term iyo maaragtay waxayna salka ku haysaa si ay ujeedaanba oo sheekadu ay ka bilaabanaysaa capacity enhancement marka hore in la sameeyo ilaa laga gaarayo meesha ugu sarreysa oo ah inuu noqdo permanent system oo waxbarashada maaragtay lagu gaari karayo waxbarashada hoose isi wad kan waa kii loo xaaweeyaan waa jiraa waa kii kulligeena soo marnay laakiin kan cusubna aynu tusayaa sii wad gabdhihii wiilasheenii sheekhii sii wad kan waaye kan marka annaga focuskeenu yahay kan waxaa la yidhahdaa saan soo sheegayba integrated Quranic schools magaalo kasta ayuu ka jiraa aniga markaan dalka aan soo laabtay nasiib wanaag fursad baa waxaan u helay inaan 600 oo macallin shakhsiyan tababaro anigu gaalkacyo garawe magaalooyinkaas ku yaala jidkaas ayaa fursad u helay intaa unbaa awoodeydu ahayd tana aragtidii waa faaftay halka waxaa jooga
كم إذا دلالة هذا هوشة كشقي ساكن ورئيسيني waxay ii sheegeen 30,000 oo arday in ay barnaamijkii hadda dhigato kuwa badanna ay dugsi sare galeen oo qaar kood jaamacad ay aadeen marka kan marka waxa weeye waa classroom weeye noocan fiyo simple alwaaxda yarka arrutu dirma loo dhigaya wala habeynaya bugtooda waxa weeye macalinka uun baa wax la siinaya macallin waxbarasho waa macallin basalka la gelis sii wad xagga dhismaha waa isbedelay halkan waa boosaaso weeye waa mid ka mid ah iskuullada hawshaas haya caruurta yararka gelinka dambena laba isku siinaya sii wad maxaa haray ma ka gaaray shanta maxaa haray